Guddida guud ee beelaha degmooyinka Qoryaale, Nasiye iyo degmada Gabagabo ayaa taageeray guddoomiyaha cusub ee xisbiga mucaaradka wadani Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan. Guddidan oo warbaahinta kula hadlay xafiiskooda ayaa waxay sidoo kale bogaadiyeen murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. Guddoomiyaha guddida Maxamed Yaasiin iyo xubno ka mid ah guddidaasi ayaa waxay sheegeen inay taageero cod iyo cududba la garab istaagi doonaan guddoomiyaha cusub ee xisbiga mucaaradka wadani Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan. waxaanu ku qabanaynaa shir jaraa'id annagoo ah guddida beelweynta Gaashaanbuur Axmed Faarax Beyle Faarax iyo Faye Faarax guriga Gaashaanbuureed ee guddidu ku shaqeyso annagoo joogna waxaanu taageeraynaa halkan ka taageeraynaa oo u hambalyeeynaa guddoomiyaha cusub ee loo doortay xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan. waxaanu ku taageeraynaa hankiisa guddoomiyenimo uu gaadhay iyo ka mustaqbal ee uu u socdo intaba waa ku taageersanahay annagoo ah beeshii ka soo jeeday taageero hiiliyahoo ayaanu halkan uga muujinaynaa. Xirsi waa nin aad iyo aad hawsha loo igmadayna ka soo bixi kara dalkana mustaqbalka madaxweyne ka noqon kara. Somaliland oo dhan sida ay u taageertay baan u taageersanahay. waxaanu kala ayideynaa baaqi ama taageeradii guddida habar jeclo ay jeedisayna iyagana waa ku ayidsanahay waana ku taageersanahay. waxaanu halkaa uga mahad celinaa isagana guddoomiyihii hore ah musharaxa xisbigana ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro garashada uu gartay iyo wareejinta uu ku wareejiyay xisbigii siyaasadda cusub ee horseedana aad iyo aad baad ugu mahadsantahay baan leenahay. waxaanu hambalyeeynaa guddoomiyaha cusub ee xisbiga wadani balyaanu leenahay. waxaanu leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka lagu igmaday Ilaahay ha ku fududeeyo. guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo Somaliland maanta u jideeyay waddo cusub oo aan haru jirin. waxaanu leenahay guddoomiye musharax aad iyo aad baad u mahadsan tahay. sunnaha aad u jideysay Somaliland ee cusub iyo dariiqa aad u jeexday ee gobonimada leh aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa. annaguna waxaan noqonaynaa insha allahu tacaala rag abaalguda baan noqonaynaa waayo ninku hadduu deeq bixiyo waa looga abaalgudaa. oo aanu hambalyeeynaa guddoomiyaha cusub ee xisbiga wadani ee loo doortay Xirsi Xaaji Cali Xasan oo run ahaantii ah nin xisbigana wax weyn gelin doona. waxaanu u mahad celinaynaa oo aanu isna u mahad celinaynaa guddoomiyihii hore ahna musharaxa xisbiga oo isaguna run ahaantii isagoo aan madaxweyne gaadhin isagaan ku soo bixin gartay inuu sunno wacan jideeyo oo asxaabta qarankaba u jideeyo oo lagu dayan karo kaasoo geesinimo muujiyey. waxaanu qabnaa in xisbigaasu uu tubtii guusha cagta saaray. aanu soo dhawaynaynaa hambalyeeynaa baarigaynaa guddoomiyaha xisbiga ee cusub Xirsi Cali Xaaji Xasan ninkaasoo ah haddii alla idmaayo hogaamiye ummadeed. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu xilkaa uu qaranka u hayo uu ilaahay ku asturo. waxa ammaan iyo mahad mudan oo aan la koobi karin oo jeexay dariiq sunno ah oo ku dayasho mudan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro guddoomiyihii hore ahna musharaxa xisbiga. waxaan leeyahay nin abaal galaa awgayo waayatiin hela allahay baan ku dhaartay rabbiga loo asxaan falooye arrinkiyo tullimadaa ku weyn oo shareer bari in yar dhowr Cirooy waad ku hoyaan aqalkii weynaa naf iyo maalba waanu la garab taaganahay xisbiga. waanu hambalyeynaynaa beelweynta habar jeclo iyo guddida habar jeclo ee haddii alla idmaayo sida mugga iyo miisaan kale u taageertay xisbiga wadani. waxaanu halkan ka hambalyeynaynaa Xirsi Cali Xaaji Xasan hoggaanka cusub ee loo doortay baanu ka hambalyeynaynaa oo ku soo dhawaynaynaa. waxaanu kaloo isagana hambalyeynaynaa u mahadnaqaynaa ninkaas Somaliland dariiqa cusub u jeexay Cabdiraxmaan Ciro dariiq cusub buu jeexay. dariiqa cusub ee aad jeexday iyo waxa aad quudhayba waa kugu hambalyeynaynaa waa kugu soo dhawaynaynaa waa kugu gacan siinaynaa. waxaanu hambalyeynaynaa si buuxda u soo dhawaynaynaa guddoomiyaha cusub Xirsi Cali Xaaji Xasan ee xisbiga wadani. waxaa la qaba oo iyagana aanu hambalyeynaynaa guddoomiyayaasha hoggaankiisa ah 6 guddoomiye ee kale ku xiga guddoomiye ku-xigeenada ah yaanu iyagana hambalyeynaynaa. waxaanu ilaahay uga baryaynaa dhammaantood hoggaanka sare ee xisbiga wadani in ilaahay u fududeeyo xilka loo igmaday. waxaanu taageeraynaa oo ayidsanahay guddida habar jeclo warkii ayana sii daysay ee hambalyada baanu ku taageersanahay oo kala soconnaa. waxaanu u mahadnaqaynaa guddoomiyihii hore isla markaana ah musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani ee fooda inagu soo haya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wadada cusub ee uu jeexay Somaliland u jeexay
waxaana weeye mug iyo miisaanba taageero baan kula barbar taaganahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaad hamigaaga gaadho xirsi cali xaaji xasan xilka cusub ee loo doortay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku asturo u fududeeyo sidoo kale waxaan isnaa halkan hambalyo iyo bogaadin uga diraynaa musharaxa xisbiga cabdiraxmaan ciro oo ku dhiiraday wax cusub oo geyigeena ku cusub dhammaanna waxaanu leenahay waxaanu aad iyo aad kuula garab taaganahay hiigsiga waxaanu ku rajaynaa insha allahu inaad guulaysan doonto ayaan le cabdullaahi jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.